بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله qaybteennii labaad concept of communicable policies-ka ahaa ayaan insha Allah halkaasii wadi doonaa marka waana chapterka afraad ee epidemiology-ga waxaan maalintii hore kasoo hadalnay isla chapterkan qaybtiisa koowaad chain of infectious disease ama chain of infectious control-kan kasoo hadalnay lixda qodob ee ugu waaweynaa muxuu yahay waxa loo yaqaano agentigii oo shayga xanuunka keenaya jeermiskii microorganismka markaa bacteria virus iyo fungus iyo parasite iyo bariankan kusoo kala sheegnay iyo qaabka uu keenayo iyo waxyaalaha u suurtagelinaya waxaan kusoo aragnay resafia oo xanuunka halka uu degan yahaa waxaynu kusoo aragnay waxa loo yaqaano portal of exit sidoo ama sidoo uga soo baxay waxa loo yaqaan halka xanuunka uu ku jiro ama qof ha ahaado ama marka animal ha ahaado ama inanimate kadibna mode of transmission-kii kusoo gudbayay portal of entry qof kale halka kusoo gelayay iyo susceptible host qofka inuu yahay qof nugul in kale marka insha Allah qodobadaas oo dhan baynu ka soo hadalnay hadda maanta marka waxaynu ka hadli doonaa carrier and its types marka carrier-ka xanuunsida iyo its types noocyada loo qaybiyay marka carrier-ka and its types bayn ka hadli doonaa marka xanuunsidaha iyo noocyada loo qaybiyay a carrier waxa la yiraahdaa waa xanuunside oo qofkii wuxuu noqon karayaa markaa dhowr nooc qofkii jeermiska jirkiisa ku jiro oo wax calaamado lahayn baa dadka xanuunka qaadsiin karaya jeermiska qofka jirkiisa uu ku jiro oo calaamado uu leeyahayna uu gudbin karaya oo qaadsiin karaya isagoo ka soo ladnaanay ama soo bogsanayo oo xanuunka ka soo ladnaaday halka dadka yiraahdaan hebelo sidee waa tahay waan ladanahay ama waan yar roonah markuu la conference ka soo ladnaanayna idana gudbiyo ayuu yahay marka noocyada xanuunsidaha iyo noocyadiisa eegi doonaa marka a carrier waxa la yiraahdaa waa xanuunside is an infected person waa qof xanuunka qabo or animal marka waxa loo yaqaan xoolo ama xayawaan who does not have kaasoon lahayn apparent clinical disease calaamado muuqdo marka calaamadii xanuunka oo muuqdo aan lahayn marka does not have aan lahayn apparent marka calaamadii xanuunka aysan ka soo ifbixin ama aysan ka muuqan marka but laakiin it's a potential source waxa suurtagal ah inuu yahay ishii xanuunkan ama dariiqii marka ku fidayay marka potential source waxa suurtagal ah macquul ah the source waxa marka waa ishii ama halkii ama meeshii of infection xanuunka marka laga qaaday to others ay dadka kale ka qaadeen marka a carrier waxa la yiraahdaa waa qof xanuunsida ah ama xayawaan kaasoon calaamado lahayn laakiin haddana dadka kale xanuunka qaadsiinayo u gudbinayo ayaa loo yaqaan marka carrier-ka waa nooca waa qof xanuunka jirkiisa ku jiro aanan laakiin wax calaamado iyo cabasho toona aan lahayn dadka kalena waxa loo yaqaan maxay xanuunka qaadsiinayo oo u gudbinayo haddaba waxa loo qaybiyaa 4 types of carrier afar nooc oo waxa jira xanuunsida ah marka health or asymptomatic carrier waa qof marka waxa loo yaqaano caafimaad inuu caafimaad qabo u muuqdo marka ama wax calaamado aan lahayn these are persons marka kun waxa la yiraahdaa whose infections remains unapparent marka kun waxa weeye xanuunkoodii ama marka inagana wax calaamada oo ka muuqdo ma jirto marka ida waa dadka qaar oo waxa weeye jeermiska jirkooda uu ku jira laakiin wax calaamado ah oo ka muuqda ma jirto sida polio virus ko kale ta jirto meningococcus ko kale kuwaas high carrier stability xaddiga xanuunsidaha ay yihiin aad u sareeya marka halkan aan yar iftiimiyo aan yar marka bayaaniyo health asymptomatic waxa la yiraahdaa qofkan jeermiska jirkiisa ku jira uu caafimaad qabo wax dhibna kuma hayo xanuunka jeermiska jirkiisa iskaga jira wax dhibaato oo ku haya ma jirto tusaale ahaan markaan soo qaaday meningococcus ko kale Neisseria meningitis-ka waxa la yiraahdaa 20% ayaa dadka waxa weeye jeermiska jirkooda ku jira oo waxa la yaqaano nasal cavity-ga ayaa marka laga helaa oo ardayda kale xilliyada practical-ka ay qaadanayaan dalalka caalamka kale waxa la sameeyaa
nasal swab baa laga qaadaa marka bal carrier stage inay yihiin in kaleetaa loo sameeya in la eego inuu xanuunka jirkiisa ku jiro sababtoo ah ciyaalka yaraa oo markaa pediatric markay ku practice garaynayaan waa laga jegraya waa laga hubiya marka qofkan uu caafimaad qabo waa iska caadi laakiinse bacteriadii ayaa jirkiisa ku jirta markaa waa qof caafimaad qabo wax calaamadan aan lahayn laakiin bacteriada jirkiisa laga heliyay laakiin dadka kaleeto haddii uu ku neefsado ama ku qufaco ama saxaradiisoo kaleeto uu la socdo xanuunka uu qaadsiin karaya marka sida cudurka dabeysha oo poliovirus loo yaqaano iyo sida cudurka loo yaqaano meningococcus ama Neisseria meningitidis ama meningitis ama cudurka qoorgooyaha la yiraahdo kuwan kale xaddi aad u sareeyo oo waxay leeyihiin waxa loo yaqaano waa maxay oo xanuun sida ah haddaba incubatory period baa jira ama incubatory period qofkan germska jirkiisa uu soo galay wax pathological problem jirka uu ku sameeyey laakiinse weli xanuunka marxalad muu gaarin oo qofkii calaamadihii ee cabashada ee soo baxda haddaa cashirkeena hore ku noqotaan qodobadan waan kasoo sheekeynay level of disease prevention saddexaad ee wax loo yaqaano epidemiology haddaa dib ugu noqotaan kasoo helaysaa mid walba sharaxaadis markaa iyo waxa weeye incubatory periodka waxaa la yidhaha these individuals markaa shakhsiyaadkani ama dhowrkan markaa dadka ah or persons markaa dadkani who excrete kuwaasoo qubo sii daayo soo saaro the pathogen markaa germskii during incubation period xilligii muddada uu ku jira markaa iyada xanuunkana jirkiisa soo galay calaamadahan ay kasoo isbixin ayuu qofkan waxaa weeye uu yahay xanuun fidiye jeermiska jirkiisu soo galay waxa dhaawacii dhibaatada way jirta laakiin weli marxalad ma u gaarin oo qofkii cabashadii markaa symptomka uu markaa iyada uu yeesho ama uu isagii cabasho kuula yimaado ama waxa loo yaqaano calaamado ay kasoo ifbaxaan malaha markaa before the onset of symptoms la yidhaha waa intaysan calaamadihii markaas ay qofkii iyo cabashadii ay kasoo ifbixin measles oo kale jadeecadoo kale ka mid ah incubatory periodka aad ugu gudubta mambiska oo kaleeta ka cudurka markaa qamanka ama qanjaha loo yaqaano chicken pox oo kale ka mid ah hepatitis oo kale ka mid ah xanuunada noocyadiisa kala duwanaa xanuunadana dhanka incubatory periodka ay yihiin waxa weeye waa fidiye markaa waa fidiye convalescent carrier baa jiro waxa loo yaqaana isna inoo jiro marka convalescent carrier qof markuu soo ladnaanaya ama soo roonaanaya ayuu gudbiye ama fideye these are those continue marka kuwan waxa waa dadka weli sii martigelinay ama jirkooda ama microorganismka ku jiro xataa waxa loo yaqaano isagoo soo bogsanaya markaa the infective agent shayga xanuunka sababaya after recovery xataa qofka markuu kasoo ladnaanayo kasoo kabanaya from the illness xanuunkii ayuu weli convalescent carrier waxaa loo yaqaanaa qofka markuu soo bogsanayo ama soo ladnaanayo weli xanuunkii sii gudbinayo way xanuunka maxay ayuu sii gudbinayaa markaa iyada okay diphtheria gowracatada ka mid ah hepatitis B virus infectionka ayaa ka mid ah xanuunooyinka tusaalada usoo qaadanayna qofka isoo soo ladnaanaya soo roonaanaya xanuunkii uu soo yiraahdo hoos usoo dhacay ayuu weli waa maxay dadka kaleetana uu sii qaadsiinaya markaa sii gudbinaya marka waa xanuunside qofku waa maxay wuxuu xanuunside uu yahay marka wax loo yaqaan uu soo ladnaanaya marka jirkiisa ku jira chronic carrier baa jiro waa nooca marka inta badan ugu caansan waa carrier state persistence waa qof xanuunside ah laakiin si joogto ah muddo dheer waxa xanuunka jeermiska jirkiisa ugu jira waxaa caan bahashan chronic carrierka loo aqoonsaday gabadha la oran jiray Mary Mallon ama typhoid feverka habartii waxa loo yaqaanay Irishka u dhalatay dalka Mareykanka joogtay xanuunka typhoid ama salmonella typhiga xanuunka typhoidka ayaa waxaa loo aqoonsaday qof muddo dheer xanuun sidaha ugu muddada dheer ayaa markaa loo aqoonsaday marka cashirkaasna isagoo duuban ayuu wuxuu inoogu jiraa bartan YouTube-ka haddii qofka u baahan yahay waxa weeye salmonella typhoid feverka uu ka sii daawan doono ee taariikhdeeda aan kaga sheekeyno marka typhoid feverka ka mid ah xanuunka loo yaqaano marka typhoidka ama typhoidka la yiraahdo hepatitis B viruska ka mid ah hepatitis B viruska naftirkiisa qofkii muddo jirkiisa isagoo calaamadaha wax dhibaato aan ku yahay markaa
okay the time halkan waxaan kaga soo baxnay carrier-ka iyo noocyadiisa markaa carrier-ka waxa weeye waa qof xanuunsida oo jeermiska ayaa jirkiisa ku jira wuxuuna ku jiri karayaa waxa loo yaqaan isagoo wax caafimaad qaba ayuu sidi karayaa oo wax dhibaato uu ku yimid muddada uu jeermiska wax dhibaato uu ku sameeyo marka asymptomatic ama healthy carrier-ka iyo incubation period-ka waxa u kala dhexeeya midna waa active xanuunka waxa loo yaqaana ayaa jirkiisa ku jira oo socdo oo dhibaato u geystay midna wax dhibaato kuma haya marka ayada wax dhibaato uu ku haya ma jirto ka kalena waxaan u naqaanaa waxa loo yaqaano waxa weeye in uu yahay convalescent carrier oo qof markuu soo lamaan soo horna uu gudbiyey midna corona carrier dheer buu xanuunka waxa jirkiisa uu ku jiraya time course of infection xanuunka waqtiga uu qaataan eegayna muddada xanuunkan uu qaato ayaan eegaynaa xanuunka 4 marxaladood baa inta badan loo qaybiyaa ka kood waxa la yiraahdaa incubation period buu xanuunka ku jira waa muddada ee qofka jeermiska uu jirkiisa soo galay ilaa intay calaamadaha ay ka soo baxayaan ayaa loo yaqaanaa incubation period is the interval waa inta u dhaxaysa of time waqtiga u dhaxeeya between the infection of the host jeermiskii soo galay marka wax loo yaqaano qofkii and the first appearance symptom iyo calaamadaha ugu horeeya symptomka cabashada iyo sign calaamadaha ugu horeeya of disease marka waxa markuu xanuunka jirkaaga soo galay bacteria ama virus ay soo gasho ilaa intay calaamadaha ay ka soo ifbaxayaan xanuunka ugu horeeyay marka ayada ayaa waxa loo yaqaanaa incubation period waa markuu jeermiska jirkaaga soo gala ilaa intay calaamadaha ay ka soo muuqanayaan marka ayaa incubation period-ka loo yaqaanaa okay marxaladda labaad waxa la yiraahdaa prodromal period prodromal period-ka waxa la yiraahdaa waa marka calaamadaha non specific calaamadaha xanuun qaas aan ku tilmaamayna ee qofka ka soo ifbaxaan ilaa iyo calaamadihii waxa loo yaqaan qaaska xanuunka lagu garanayay marka waa calaamadihii koowaad ee qofka ka soo ifbaxay non specific baa la yiraahdaa oo xanuunka ka yeelan karaya ilaa kuwa xanuunka qaaska u ahaa ee ka soo baxaan muddadaas la yiraahdaa marka sida kalena waxaa loo macneeyaa intermediate baa la yiraahdaa intermediate level waa loo yaqaanaa muddada u dhaxaysa qofka wuxuu kuula imanaya madax xanuun wuxuu kuula imanaya salaam haday soo qaadano ayadoo kaleeto ilmi yara wuxuu kuula imanaya qufac xumad waxa loo yaqaan duuf yar ama waxa loo yaqaan calaamado ay ku muujinaya ilmihii xumad yar buu kuula imanaya marka waxyaalahaasi waa nin specific symptom ilaa calaamadihii xanuunka lagu garanayo quficii duufkii indhihii casaa detrisi conjunctivitis cough iyo corrosive balaas loo sii geeyay marka waa maxay skin rashki oo jirka dushiisa marka fiicanta lagu garanayo iyo weliba kuwa qaaska ahaya gudihiisa ka soo baxay marka muddada calaamadaha non specific oo qofka ka soo baxay ilaa kuwa muddadaas prodromal phase loo yaqaana ama intermediate level la yiraahdo marka okay waxa la yiraahdaa is the interval waa waqtiga between u dhaxeeya the onset of symptoms marka calaamadaha qofka ka soo baxaan of infectious disease xanuunada faafa marka calaamadihii lagu garanayo marka and the appearance iyo ka soo muuqashada characteristic manifestation calaamadihii qaaska u ahaa xanuunkaas marka calaamadihii non specific muddada qofka ka soo yaacan iyo kuwa xanuunka lagu garanayo marka example measles jadeecada fever buu qofka yeelanaya xumad corrosia wuxuu yeelanayaa cabr iyo duuf occurs in the first 3 days maalmaha hore ku yar dhacay marka qofka wuxuu iska yeelanaya qufac yar xumad yar duuf yar wax noocaas ka yeelanaya kadib characteristic-gii calaamadihii qaaska u ahaa jadeecada ayaa qofka Coblekis spot in the buccal mucosa Coblekis spot waa ninkii markaa nin baa loogu magac daro waa finan cascas oo daanka gudihiisa ama bucalka waxa loo yaqaan daanka waxa loo yaqaan afka markaan eegayno qofka gowsaha dambe dushooda ayaa wax oo xagga gudaha xigta ah ayaa waxa ka soo ifbaxaya canka ama daanka si Soomaali qof u yaqaan ayaa 6 ilaa 8 fin oo yar oo cas oo dhexda waxa loo yaqaano cadaan ah oo u gudan baa qofka ka soo baxaya waana calaamada loo yaqaan qaaska oo ah oo baatanomooniga oo ah oo xanuun kale aan la wadaagin oo lagu yaqaan marka jadeecada iyo characteristic marka si kaleeto
skin lesions markaa appear on the 4th day maalinta afraadna waxa ka soo yaacaya finan xagga maqaarka ah ka soo bilaabaya xagga qoorta iyo qadaadka timaha halkay ku dhamaadaan ilaa fooda hore saa u soconaya wajiga sakaanka sidaa qofka ugu dhamaanaya marka finanka waxa loo kala qaybiyaa labo kuwan complex spot oo ka soo baxaya qofka afka gudihiisa daan ka soo baxaya waxa la yiraahdaa premolariska waliba waxa la yiraahdaa enanthum waa finanka marka complex spotka kuwan kalena waxa loo yaqaanaa skin rasheska exanthum xagga dusha sare marka ka soo baxaya waxaana la yiraahdaa maculopapular finan yar oo qaarna biyo leh qaarna maqaarka ay la sameeyeen baa ka soo baxaya marka waa muddadii calaamadaha non specific xanuunka uu yeelanayo oo qofka oo sida feverka cross yeelanay ilaa calaamadihii sifiix xanuunka lagu garanay ay ka soo baxayaan muddadaas prodromal periodka loo yaqaana marka period of communicability xilliga uu qofka uu fidiyaha uu yahay waxa la yiraahdaa waa the period marka waa xilliga dhowrin kaasoo with the particular communicable disease infectious agent is transmitted from the infected person to susceptible host marka muddada uu qofka xanuun fidiyaha u yahay qofka waxa la yiraahdaa muddada xanuun fidiyaha waxa weeye inta jeermiska jirkiisa laga helayo marka ama dhiigga ha ku jiro ama waxa loo yaqaano saxaradiisa ha laga helo ama dhiiggiisa ha laga helo ama xaakadiisa waa muddada uu qofka uu fidiyaha u yahay waxaana xanuun fidiye qofka loo yaqaana mar kasta oo jeermiskan qofka laga helayo jirkiisa waxa waa fidiye communicable disease control xanuunada faafa qaabka ama habka loo xakameeyo this refers waxa loo tixgeliyaa to the reduction yareynta of the incidence marka uu dhiigayska dadka cusub xanuunka hadda la soo dhacayo ama hadda u soo jiifsanaya and the prevalence baahsanaanta of communicable disease xanuunada faafa to a level here waya kaasoo it cannot be ay noqon karin major public health problem marka dhibaato caafimaad aysan bulshada inaysan ku noqon karin laga dhigi karay marka si kale waxa la yiraahdaa communicable disease control waxa lagu qeexaa in xanuunka hoos loo dhigo dadka u soo bokooraya baahsanaanta marka prevalence waxa la yiraahdaa waa qofka hadda waa old case iyo new case la isku daray waa percentage-ka heerka uu xanuunka dalka uu ku maray marka heerka xanuunka dalka uu ku maray in hoos loo dhigo ilaa laga soo gaarsiinaya marxalad uu xanuunka uusan noqon dhibaato bulsheed caafimaadka bulshada wax dhibaato uusan ku haynin laga dhigaya marka waa yareynta la yareynaya ama hoos loo dhigay dadka xanuunka u soo jiifsanaya u soo dhacana hoos loo dhigay kuwa horena la suulinayo taasoo oo laga dhigaya meesha ama laga saaraya inuusan xanuun heer uusan soo gaarin dhibaato caafimaad ama uusan xanuunka bulshada uusan ku hayn marka haddaba habka lagu yareyn karayo oo hoos loogu dhigi karayo si uu heerkii uu caafimaad ahaan bulshadu saameynta uu ku lahaa loo siireeyo waxa loo yareyn karayo waxa weeye dhowr hab marka methods marka dariiqada of communicable disease control xanuunada faafa lagu xakameyn lahaa there are three main methods waxaa jira saddex hab of control lagu xakameynaya communicable disease xanuunada faafa xanuunada la isku gudbiyo xanuunada la isqaatiyo saddex hab baynu ku yareyn karnaa number 1 elimination of the reservoir inay meesha ka saarno ka baabi'ino ka ciribtirno wixii xanuunkan halkii uu xanuunka deganaa number 2 interruption in la joojiyo in la hakiyo in la farageliyo of transmission xanuunka gudbitaankiisa iyo protection in waxa weeye ilaalo loo sameeyo of susceptible host qofka xanuunkan u nuglaan waxa weeye inaan difaaciisa aynu sare u qaadno markaa okay qodobkood elimination of reservoir halku xanuunka markaa deganaa in la baabiyo in la ciribtiro sidee baan ku ciribtiri karnaa saddexda reservoir ayna man as a reservoir animal as a reservoir non living thing as a reservoir saddex shay xanuunka u deganaa waa inay wax ka qabano markaa when a man is a reservoir markuu qofkii bini aadmigii uu yahay halka xanuunkii uu deganaa ee laga qaadayay eradication ciribtirka of infected host qofka xanuunka qabay is not a viable option ma aha marka iyada dariiq markaas suurtagal ah ma aha ya qof kasta xanuun ku dhaca dillo choice ma noqon karta marka iyada option marka inoo bannaan ma aha instead halkii the following options are considered marka dariiqadan kaleeto ayaan ahmiyadda siinayna oo tixgelinayna oo marayna marka
Number 1 detection qofka in la soo qabto an adequate treatment of case marka bukayaashii xanuunka qaba caseska waa bukayaashii in la soo helo la soo qabto daweyn ku filan la siiyo daweyn ku filan oo maxay la siiyo arrests inay xidhno marka ay joojino the communicability of disease xanuunka fiditaankiisa example ahaan treatment inaan daweynaa active pulmonary tuberculosis cudurka qaaxada qofkii qabay qofka cudurka qaaxada qaba in inta loo soo qabto la dhiga cisbitaalka dawada la siiyo labada bilood oo xanuunka uu biyaha u yahayna waxa way cisbitaalka lagu hayo dawada qaato hal heer laga soo gaarsiinayo xanuunka qofka uusan gudbin karin marka bacterial dose aad loo soo yareeyo marka qodobka labaad waxaan ku sameynaynaa isolation markuu qofka xanuunka uu qabo in dadka laga dhex sooco oo waxa weeye qofka xanuunka qaba xanuunada faafa aad u outbreak sameeya dilaaca indhooyin email gooniya la dhigo marka separation waxa dadka laga dhex soocaya laga saaraya of infected person qofka xanuunka qabay for a period muddada of communicability disease oo xanuunka u fidiyaa u yahay isolation is indicated isolation inta badan waxa loo sameeyaa loogu talagalay for infectious disease xanuunada faafa the following features calaamadaha soo socda leh high morbidity and mortality xanuunada leh dad tira badan dad aad u sareeya xanuunkii u soo dhacayaan u soo jiifsanayaan and mortality dhimashadoodan ee badan tahay xanuunadaas oo kale hadda koleerada oo kale markay dilaacdo oo kale waxa loo yaqaan meningitis oo kale xanuunada waxa loo yaqaan diphtheria oo kale disease preventable vaccination oo kale marka high infectivity xanuunadan aadka u gudbaya aadka u faafaya xanuunka infectivities waxa laga yaabaa hadda koleerada oo kale tiro aad u yar 10 ilaa 100 jeermis ayaa gabiga xanuunka qofka haduu jirkiisa soo galo ayaa wuxuu la soo dhacaya halkii mar qofka uu shubmo oo markaas uu shubmana 1 milyan oo bacteria loo yaqaan Vibrio cholerae ayuu qofka saxariisa la socoto halka milyan waxay u qaybsami kartaa waxa loo yaqaano tusaale ahaan 500,000 nus milyan ama ilaa tiro ku dhow waxa loo yaqaan 300,000 qof ayaa waxa way xanuun halka mar qofka uu shubmaa hadii bacteriadaas ay dadkaas ay la kulmaan ay sii qaasiin kartaa marka xanuunka aadka u gudbo dadkana aadka oo la soo dhacaan una dhintaan ayaa waxa loogu talagalay in isolation ama marka loo sameeyo wax loo yaqaan isolationka marka ama quarantine-ka xunaqan inkastoo loo eray la isku qaldo isolation iyo quarantine labada habka loo adeegsanayo ay kala duwan yihiin qofka hadda waa la karantiilaya meel karantiimay Soomaalida iska tiraahdo laakiin karantiinka ayaa laba kala nooc qofka markuu xanuunka qabo oo la soo dhaco meel ward gooniye loo sameeyo isolation center baa leeyahay laakiin karantiinka waxa la sameeyaa limitation of movement qofku waxa laga xadidayaa dhaqdhaqaaqa socodki sababtoo waa maxay apparently well person waa qof u muuqdo inuu caafimaad qabo ama animal who has been exposed kaasoo la kulmay to the infectious disease marka wixii xanuunka keenay for a duration of maximum incubation period marka muddada qofka la karantiilin waxa weeye waa muddada uu xanuunka calaamadihiisa ay ku soo ifbaxayeen tusaale ahaan hadda waxaad ka timi dal hadda ku soo qaad waxa tusaale ila fahmaysaa xilliga coronavirus oo kale socdaalka dadka ka yimaada meel xanuunka uu ka jira 14 cisho ama 10 cisho hotel la dejinayay oo ma garan karna qofka inuu caafimaad inuu xanuunka qabo inuu caafimaad qabo ma kala garanin marka muddada calaamadaha ku soo baxeen baa qofka hotel la dejinaya oo halka uu ku jiray marka waana la baaraya kadib hadii xanuunka laga waayo waa la karantiilaya muddadaas uu ku jiray halkaasi waxaan oranaynaa wax loo yaqaan hadii muddadaas wax calaamad ay ka soo bixi waayeen waa la sii deynaya hadda ka soo baxana waa maxay isolation ka la diray marka karantiinka waxa waa qof aan wax xanuunka aan ku hubin laakiin ka yimid ama la kulmay dad xanuunka qaba marka isolation kan waa maxay waa qof xanuunka qaba oo in la daweeyo u baahan oo dadka laga dhex soocay marka isolation iyo quarantine labada eray Soomaaliya labadaba karantiil beeraa wayna isku bedeshaan laakiin macne ahaan ay kala duwan yihiin macna ahaan ba waa maxay ay kala duwan yihiin marka animal as a reservoir hadii xanuunkii uu marka waxa sido ama uu ku jiro ama qaba ay tahay marka xoolihii ama xayawaankii hadaba iyaga waxa laga yaabaa action marka ficilka will be determined waxa go'aamin doona go'aanka aan ka qaadan doonaa
ama tilaabada in qaadan doonaa waxa inoo go'aaminaya usefulness waxtarka muhiimad waxtarka uu inoo leeyahay of animals marka xayawaanka faa'iidada ay waxtarka inoo leeyihiin baa inoo go'aaminaysa marka how intimately they are associated sida ay rafiiqa ula yihiin ama ay dadka ula joogaanna way ku xiran tahay marka tumaan oo xoolihii oo kaleete haddii guriga ay joogaan oo dadkii ay dhexgal bulshada ay la sameynayaan iyana way ku xiran tahay and feasibility suurtagalnimada of protecting susceptible animals xilliyada qaarna waxaan u baahannahay in dee xanuun waxa loo yaqaano xayawaanka oo kaleeto haddii uu u nugul yahay oo kaleeto xilliyada qaar waxay sameynayaan inaan ilaalin karno marka haddii uu nugul yahay oo kaleeto xanuunadii uu soo gudbiyo oo kale oo waxtar uu inoo leeyahay waxaan sameynaynaa waa maxay protect ilaalino susceptible animals xayawaanada kaleeto guriga jooga u nuglaa xanuunka inuu sii qaadsiiyo markaa tusaale ahaan cudurka loo yaqaano blacky ama cudurka daacuunka la yidhaah yersinia blacky Soomaali waxay isku qaladaa koleero waa shuban biyood daacuun ma aha blacky ayaa daacuunka ah the black death baa la oran jiray taariikh aad bay u sareysay ku leedahay public health iyo waxa loo yaqaan iyo wadamada Yurub qaas ahaan Ingiriiska the black death baa la oran jiray the blue death waxa la oran jiray waa maxay baasha loo yiraahdo koleerada marka xanuunkan daacuunka waxa gudbin jiray the rat jiirka ayaa wuxuu ahaa waa maxay ayaa gudbin jiray marka is regarded ayaa loo tixgelin jiray as a pest jiirka marka guri joogta ah ayaa xanuunkan gudbin jiray the objective marka hadafka will be wuxuu noqon doonaa to destroy the rat in jiirka marka intiisa la burburiyo la laayo exclude it from the human habitation meelaha ay dadka joogaan oo dhan jiirka waxa la isla qaatay in laga laayo marka xanuunkan yersinia blacky marka bacteriadaas gudbiso saddex nooc buu ahaa marka horeeto jiirkan baa soo gudbinaya qayb kamid waxa la yiraahdaa duqsiga naftarkiisa uu gudbiya the flies marka jiirkan ayaa wuxuu ku saxaroonaya marka biyihii iyo cunada meelaha dadkii baa sii cunaya qofka marka ayada wax loo yaqaano ayaa sida daacuun ku qaaday qofka marka la soo dhigaa dhiigii buu raacaya bacteriadii kadibna respiratory qofka qof kale wuxuu ku sii qaadsiinaya waxa loo yaqaano bubonic blacky oo loo jiray airborne disease laba route of transmission qofka hore wuxuu ku soo qaadaya jiirka factor bypass ka soo qaadaya marka waarka la soo dhigana kii kale wuxuu ku sii qaadana waa dadka kale airborne ahaan ka airborne ku qaaday ayaa marka ay sii halis badan marka saddex nooc buu marka xanuunka marka uu sii kala qaybsan jiray marka gastroenteritis iyo pulmonary iyo waxa loo yaqaan sepsis anyway marka jirkaas oo kale waan leeyahay isaga la dilaya rabies oo kale cudurka rabiada loo yaqaano pet dogs ayda guri joogto kale can be protected by vaccination ayda guri joogto kale waxa la siiyaa talaal iyaga maadaama faa'iido inoo leeyihiin waxtar inoo leeyihiin but stray dogs laakiin ayda duurjoogta ah haddii xanuunkan laga helaa waa la dilaya marka infected animals used for food marka xayawaanka kaleeto aan hilib ahaan u isticmaalan waa inaan iska baadhnaa haddii xanuunka uu qabo waa in laga daweeyo haddaan laga daweyn karin gaaladii waxay aaminsan tahay in xanuun neefkaasi la dilaa marka waxaan eegi doonaa non living things oo kaleeto waxyaalaha marka sheedka inta badan aan nooleen possible to limit waxa inta badan waxa macquul ah inaan iska xadidno iska yareeyo meelis exposure qofka meelaha uu xanuun ka qaadi karaya sida afka area meelahaas oo kale iska ilaaliyo oo kaleeto biyihii oo kaleeto cunada oo kaleeto qalabkii waxyaalahaas oo dhan haddaysan nadiif ahayn qofka waxa weeye inuu iska nadiifiyo ama iska joojiyo marka qodobka labaad waxa loo yaqaanaa tii hore wuxuu elimination qodobka labaad waxa weeye interruption of transmission in la kala gooyo in la joojiyo xanuunka gudbitaankiisa this involves tan waxay ku lug leedahay the control xakameynta of the methods marka dariiqada ama habka of transmission xanuunku marka uu kaga gudbayo from the receptor halka uu ku jiro the suurtagalnimada new host qof cusub marka ay xanuunku qaaday marka waxaan kala jeednaa qofka xanuunka qabay iyo kii u nuglaa inuu xanuunka uu qaadsiin marka hababkii aynu taa u kala gudbin lahayn u kala joojin lahayn ayaa marka loo baahay marka qof cusub inuu xanuunka qaado inagoo kii qabayna marka ilaalinayna marka cusba oo halkaa ku kala jirayna hababkan ku kala goyn karno oo ku xakameyn karno waxaa ka mid ah improvement inaan sare u qaadnaa environmental sanitation nadaafadda deegaanka
and personal hygiene iyo nadaafada shakhsiga ba markaa biyihii iyo cunada la cabayay markaa fecal oral disease ka dhanba waxa u baahnay in la control meelaha la iskaga saxaroonayay waxaasoo dhan xakameyn u baahan control of factors waxyaalihii xanuunada gudbinayay iyagana waa maxay inay iyagana iska xakameyn disinfection and sterilization inay waxyaalaha qalabka jeermiska waxa weeye ayn ka nadiifino oo ayn ka dilno ayaa iyagana loo baahan markaa iyada ama gacmiha noqoto ama qalabka ha noqoto wax kasta oo markaa xanuunka gudbin kara inay iyadana iska nadiifino ka ugu dambeeyo protection of susceptible host in la ilaaliyo qofka xanuunkan u nuglaa oo marka qofka xanuunkan qaadaya marka u jilicsanaa this can be achieved tan waxaan ku gaari karnaa ku guuleysan karnaa immunization qofka in la talaalo in qofka waa maxay talaal la siiyo habkaas waa maxay ayaa qofka lagu ilaalin karaa qodobka labaad chemoprophylaxis dawooyinka hortaga tusaale ahaan oo kaleeto waxaan u naqaanaa malaria xanuunka waxa loo yaqaan malaria ama jadeecada kale in niraano cudurka duumada kale qofka waxay u siinaa prophylaxis hada qofka markuu baxayo kale wuxuu yiraahdaa xagga miyiga qoonay kliniinka ka hortaga kaneecadan u sii baahanay meningococcus waxa loo yaqaan meningococcus cudurka u naqaana ama in niraano kale ay sii siina marka xanuunadaas oo kale marka kuwa waa dawooyinka hortaga xanuunada qaar in qofka la siin karo dawooyinka hortaga intuusan xanuunka maxay uusan qaadan ama ka soo afbixin koleerada kale ka mid ah intuu qofka iyadana kiniinka hortaga ay si doxycycline bay siin jireen ama tetracycline penicillin group malaria kale qofka inuu sii qaato okay better nutrition qofka in nafaqadiisii cunadii la hagaajiyay marka iyada si difaaciisi uu wanaagsado antibodies fiican iyo difaac qofka uu sameeyay marka cabitaanka biisi cunadiisa la hagaajiyay personal protection qofka inuu isaga is ilaaliyo kaleeto uu kaba dhaadheer oo kale personal protective equipment uu qofka xiranay marka inuu xidho kale loo yaqaano kaba buud ah oo kale xidho gloves oo kale xidho qofka waxa loo yaqaano koodhan oo kaleeto qofka inuu xidho mosquito bed net marakaneeca oo kaleeto qofka inuu isticmaalo oo kaleeto insect repellent waxyaalaha markaa creamadii ama wax la yaqaan waxyaalahaas oo dhan qofka inuu isticmaalo waxyaalaha inta badan aynu u baahannahay marka waa habkii lagu ilaalin karay insha Allah cashirkeennii marka maanta halkaas ku eegay qaybtii labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi